xasuusinaya haddaad nagu cusub tahay please nagu soo biir oo subscribe saan haddaad nala joogtayna we are family thanks for the support. السلام عليكم maanta barnaamijka waxaan kaga hadli doonaa qodob xasaasi ah kaasi oo ku saabsan qaabka loo weynayo ama loo dheereeyo xubinta taranka ragga ee loo yaqaan kuuska. Rag badan ayaa waxay ka sheeganayaan in kuuskoodu yahay mid aad u gaaban ayagoo ka cabsi qaba in aysan waxba ku qanci karin naagta. xaqiiqda marka laga hadlo kuuska inuu dheeraado ama inuu gaabnaado shaqo kuma lahan raaxada galmada. waxaa muhiim ah oo keliya in aad inuu kuuskaaga adkaado una kaco. marka horeeto kuuska ilaahay kursiga ku qanac kuuska weyna oo keliya waxba kama qanciyo raaxada. muhiimadda waa in kuuskaaga adag yahay haweeneydu ama ha yaraado. gabdhaha waxaa qanci karaa kuuska adag. haddaba waxaa jira qaabab aad kuuskaaga ku weynayn karto oo weliba si dabiici ah. cabirka ninka ragga kuuskiisa looga baahan yahay waa inuu noqdaa qiyaas ahaan inta u dhexaysa 12 sentimitir ilaa 15 sentimitir marka uu ka cadsan yahay. sida la ogyahay dumarka farjigooda raaxada ma dareemaan 8 sentimitir oo kaliya ayay ka dareemaan raaxo. 8 sentimitir wixii dhaafsan dumarka waxay dareemaan xanuun. weynaanta iyo adkaanta waxay dadka ku kala duwan yihiin sida qowmiyadaha bini'aadamka ee ku kala nool adduunka u kala duwan yihiin. haddaba haddii aan ka hadalno qaabka wanaagsan ee aad u weynayn karto waxaad samayn kartaa adigoo soo qadaa shukumaan iyo biyo kulul. waxaana samaynaysaa inaad ku marisid saliid taasi oo ka samaysan saliidda loo yaqaano saliid saytuunka adigoo ku daliigaya. subax kasta ku sameeya masaaj. subax kasta waxaad ku samaynaysaa masaaj adigoo oo daliigaya. waxaana wax badan ayaa iska arki doontaa insha allah. xayilka iyo buurnida sababta keliya ee aad ugu malaynaysa in xubintaada tahay mid aad u gaaban ayaa ah inaad qofku uu yahay mid buuran ama cayilan. haddii qofku miisaankiisu oo kordho waxay noqonaysaa qofku geedkiisa ula muuqdo mid gaaban. jimicsi samee si baruurta ku hareeraysan xubinta kuuska uga baxdo meesha kuuso keliya meesha uga muuqdo. sidoo kaleeto waxaad samaysaa adigoo joojinaya siigada ayaa ah mid ay dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed ama dhalinyaro badan oo kamid ah caalamka ay caadaysteen muddooyinka dambe ayagoo adeegsanaya gacantooda. taasi oo dhibaato ku keeni karta xubintooda taranka. waxaana jira dhibaatooyin kaga dhalan karta marka ay ninka u badsado siigada iyadoo halkaasi ay ku dhima karaan xidido yaryar oo kuuska ku hareeraysan kuwaas oo loo yaqaano neerfayaashaas ayaa waxay noqonayaan kuwa dhinto ayagoo noqda kuwa aan dib u soo noolaan. waxaana halkaasi ninka ku noqon kara inuu ku waayo qayb ka mid ah xubintiisa taranka isagoo xididada ka mid ah qayb ka mid ah jirkaasi ay meesha ka baxaan. taasi oo noqon karta in xubintaasi ay meesha iska taagnaato weligeedna korin. waxaan dhalinyaro badan kula talinaynaa inay iska daayaan siigad. sidoo kale isticmaal cuntooyinka nafaqada leh ee wanaagsan. ninka ragga inuu isticmaalo si xubintiisa taranka u korto waxaa ka mid ah cuntooyinka leh sida borotiinka iyo cuntooyinka kaloo nafaqada leh. sidoo kaleeto waxaad samayn kartaa inaad cuntooyinka aad basatid sida nafaqada cuntooyinka ay ku jiraan ukunta iyo dhirta cagaaran. sidoo kale waxaa loo baahan yahay inuu qofka doonaya inuu hab